barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, qoys markii la yidhaahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa. mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagaba maarmaan u ahayd inuu helo haweenay dhabeel ah, reer ku filan ah, xilkas ah oo xagxagsan, howlaha qeexan ee ay bulshadu ku qaybisayna ka soo dhalaali karaysa. sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin, haweenayda tilmaamahaas leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray. toddobaado amaba bildhan ayuu reerkooda ka baadi jirayoo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray. habeenna idil ayuu sida awr banjooga cilla ciirsida ku dibjiri jiray, iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabadh wanaagsan loogu farmuqay. marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana, mid ka warqaba ayaa wuxuu odhan jiray indhawaalaba lama aragoo wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegin. helyaa ama baadigafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayoo tamadin jiray. maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reermiyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen? su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna, maxaa yeelay maansayahano dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay, kuwaasoo ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoon ahaa, ama ka dhab ma ahayne dad kale ku dhaga hadlayay. gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa malahayga ugu da'weyn tixuu tiriye gabyaa waagiisii aad u caanbaxayoo faarax xasan cali la odhan jiray, faarax afcadna lagu naanaysi jiray. wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa degaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey, isla markaasna ahaa colwadeen ammaanduulo ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isagoo halyeelaha u qaban jiray. faarax oo markaa oday ah, reer iyo carruurna leh, ayaa tix gaaban oo ay wariyeyaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn, isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacayo. tixdaas oo halkuu dhageedu yahay waan ka buubsanahay wuxuu u horraysiiyey 2 meelisoo dhalanka oogada ku saabsan, 2 meelis oo si dadban uu ugu ammaanayo gabadh uu dhalay oo baydan afcad la odhan jiray. wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraana loo malayn, isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana midaan bogan itaalkeeda aan laan basiiruu ekayn waa ka buugsana. gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa, kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo. waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aad qaali u ahaa, midda markuu iska bixiyo aan danayn, aqalkana aan soo gelin, dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku yidhaahdana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye. waxaanba u malayn in dawaco gaashaysani ay xalay la tagtay. marka labaad, wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiriqda oo gogosha iyo gogol la-aantu ay isaga mid yihiin. dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtayoo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. marka saddexaad, wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa, taasoo arigeedu aanu marnaba badan bulaalinna.
marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayoo kashkaas iyo gogol lagu dagiigsadaa toonii aanay oolin. marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caano toona isku mar iyo isku meel kagaba dhargi karee wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yara oo caano ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. markaas baa waxaa mahmaahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii hiili tidhi walaal-la-aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tidhina naag la-aan baa dhaanta. wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowdadii dibiga tii tiri xalaa bahal la tegay waa ka buubsana, bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsana, midii caana biitaamisoy biista maqasheedu arigeeda biid kuma kordhoo waa ka buubsanahay, aqal bilic leh waxaa iiga roon buul astaawilane burna midaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay, caanaha iday kama bogto oo baday gugaygiiye hadba baraq midaan ii shubayn waa ka buubsanahay. marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kaleba ugu tagrifasha hadhow goor habeenbara markuu soo dhacana u weyda waxa ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilishilis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweenay kasta oo baxaalle ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. meedisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa anoo bila maqnaan jiray midaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tidhi waa ka buubsanahay, nin baruurta jecel baanahoo weydi waa belowe naagaan kubiya bari lahayn waa ka buubsanahay.